salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegnay qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreede waxaa ugu dooro maraykanka oo loo gudbiye muhiimadda dhaqaalaha somalilan aabacali baanday oo asqaran loo sameeyey xaaladii shidan iyo waqdariye oo laga soo dayrinayo lafta gareen oo tababar u soo xidhay ciidamadii laga horgeyn lahaa xasan sheekh maxamuud eeraan oo warma ku haylaysay fadhiisinka ciidamada maraykanka badweynta hindiya maraweyntii carbeed oo ku geeraaraysa inay yahow run iyo been riyo iyo soo jeed dhanna iimo roono oo qalbigay rogmanaye xasan sheekh oo isaguna ku halaan halaya maantana qudhaydiyo cabduqaawan baa hadhay iyo weliba ruushka oo iiraan ku noqday sahankii hayaag diray wararkaasi iyo wararka oo dheeraad ayaa doonayna ku soo dhawaada barnaamijkeen wargelin muhiim ah dugsiga alfurqaan islaamic online wuxuu ku wargelinayaa qurbajoogta soomaaliyeed inuu qaadanayo arday cusub kuwaas oo si gaara loo barayo qur-aanka tafsiirka higaada iyo dhammaan culumta islaamka kala xiriir wixii faahfaahinaa nabarada shaashada kaaga muuqda xogaha nagaga soo jirfanaya sida taliya gudaha dalka iiraan ayaa sheegaya in caawa duulka reer faris maguujiyeen gantaalla mariidaysan oo aan yarayn kuwaas oo ay la eegteen meelo dhira dhabatada lagu dhacaruuriyo oo ku yaala gudaha dalka israa'iil wararka ayaa doodoocinaya in ugu yaraan 100 gantaal dodaasi loo ganay kuwaas oo ka gudbay kana tallaabay dhammaan bateerigii iyo gaashaankii teedka u ah qolyahaasi amase ay haysteen teeriyadan ayaa la soo tabinaya inay yihiin kuwo loxosa oo idil ahaanba ka duwan kuwii hore ee iiraan dhankaasi la eegan jirtay iyagoo caawa ku soconaya xawaare iyo weliba jeefad aan jaadkiisa hore loo arag xukuumadda ceelka teheraan ayaa ku doodaysa inay sii wadi doonto gulufka dagaalka oo ay kaga dhigi doonto xeer dareesha isla jeerkaadna ay noqon doonto mid aan u kaadkaadin amase aan sinaba ugu miyirin xukuumadda ceelka tel abiib oo ay u aragto inay yihiin duulka soo hogaaminaya amase dhabarka soo taabtay duqa dhuranka badan ee Donald Trump dooda kale dowladda Iiraan ayaa saaka qaboonadii gamasyo la tiigsatay saldhigga ciidamada Maraykanka ee badweynta Hindiya kaasoo aan la sheegin waxaa raawaa ka dhashay qolyahan ayaa u muuqday inay yihiin dar soo dhaafay oo guud ahaanba tale ku guddoonsaday inay wadaan dagaalka iyo diriirta halka duulka reer bogoxna ay u toogahayaan in dagaaladu sii fido oo ay goonyaa u faafto isla jeerkaadna ay carrada oo dhan saameesho kuna baahda guud ahaanba gobolka galankarta bariga dhexe sidoo kale reeraha carbeed ayaa iyaguna u muuqday inay yihiin dar aan tale faraha ugu jirin oo sheeda uun ka daawanaya arlada ololaysa iyaga oo tamar u waayey oo taag u hidin kari waayey inay iska baaciyaan gantaalaha iyo gamasyada laga soo magruujinaya duleedada dalka Iiraan kuwaasoo noqday qaar aan maalin ka soo gaaxan amase aan habeen u soo dhixin isla jeerkaadna fiidiya finjilba loogu garhayo duulaamo iyo weliba dagaallo aan dhammaad ahayn haddii aynu u kacno qaaradda afrika iyaguna xogaha aanu ka helinay magaalada muqdisho ayaa sheegaya inuu majaa ka taagan yahay guux iyo gariir aan yarayn kaasoo lagaga soo horjeedo abka uu wax u itatabinaya duqa xasan sheekh maxamuud waxaalaha ayaa bitinaya raggii xasan sheekh maxamuud la jeeniga ay muska jebiyeen oo ay ooda ka tosheen isla jeerkaadna ay kadinka boobeen iyagoo iskaga huleelay guud ahaanba xisbigii uu duqaasi dambaabi jiray ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan odowaa muddo dheer ku daabnaan jiray xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo warramaya inuu hadda hunguri ka soo galay cabuudha looga taliyo soomaaliya isagoo kalkan u xusulduuban inuu ku bahartaansado wambarka soomaaliya ku sarreeya sidoo kale hebelkaysan baloorsho oo soo noqday taliyii hay-adda xuuraanka iyo dabagalka soomaaliya ayaa guud ahaanba isaguna ka jicirtay baradii uu ka batorin jiray isagoo sheegay in la joogo kalkii meesha lagu kala hadaafi lahaa sidoo kale waxaa hilka iyo heeryadaba daadiyey duulkii raxan weyn ee ka tirsanaan jiray xukuumadda xasan sheekh maxamuud kuwaas oo iyaguna la maray ninkii haatan gaaleeftu dul saaran tahay cabdicasiis lafta gareen oo dagaal iyo weliba iska caabin kula jira dowladda soomaaliya dadka siyaasadda hundahundeeye amase qujequjeeya ayaa ku doodaya in xasan sheekh maxamuud uu maanta taagan yahay gawaan cidla iyo gawaan bahale maadaama oo uu daareed hore ula dagaalamay sidoo kalena ay raxaweyn birtu isugu jirto halka reerihii hawiyana ay noqdeen maxog diiraya iyo hawiye moofadubayaaba wiilaalkaad nagala socotaan waa taar tv gudoomiyaha gobolka sanaag maxamuud raage ibraahim ayaa dharaatii shalay ee ciidda tooq iyo toodha isbarkan u dawiyey qolyaha wararka mishiiqsada ee ka howlgala gudaha magaalada ceeri gaabo isagoo sheegay inay tabinayaan warar aan sal iyo raatoona lahayn balse ku saabsan xogo ka makacda oo jira waxa uu sheegay inay werinayaan dagaallo ayaa ka bilaabmi doona marka ay dhammaato kalgeesha sooqaad amase rabadaan taasoo aanu tuugna xadin waxa uu gebi ahaanba dafiray inay laba beelood isku hor fadhiyaan deegaamada waqdariye iyo galweyta kuwaas oo ka soo kala jeeda beelaha muuse ismaaciil iyo warsankeli
waxa uu warjeetada lalada u saaray inay wadaan isku dir iyo iska horkeen bulsho halka uu isagu gabay xilkii loo igmaday maadaama oo uu ka dhigan yahay xaalkiisu raaga suuy galay. waxa uu warjeetada ceerigaabo ku diidan yahay inay soo tabiyaan sida xaalku yahay iyo inay ishu dhiig leedahay oo madanaha dabka la isu geliya gaar ahaana warsangel iyo muuse ismaaciil siiba oo shawrur suge. gudoomiye raage ayaa iska indhatiraya huburuursiga jitatabaha iyo tabaabashaha ay ku jirto oosha warsangeli isagoo culayska iyo cadaadiska saaraya oosha muuse ismaaciil ee sacabooleyda ama si ay sacabooleyda ka dhigtay xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan ciro maadaama oo ay qaramaysay gaadiidkii hubkii iyo saanadii ciidan ay wax iskaga waabinayeen gaar ahaan markii loo toogadahayay in lala wareego gobolka sanaag kaasi oo la isugu khayradirtay. maxamuud raage ibraahim ayay kaga dhegan tahay sida hadalkiisa ka muuqatay inuu gacan wax kaga wanaajinayo wariyaasha u darban inay soo tabiyaan xaaladda taagan oo u baahan gurmad iyo weliba kala qaboojin bulsho. gudoomiyaha ayaa taagan waaba bakti iyo duuf inaad soo tabiso bile iyo xirsi colowtaa bedelkeedna waa inaad dhehdaa carrigu waa nabad iyadoo welibana la isugu jiro sutaxodayo tiyo aan la isbixinaynin in la wadi jirayba. waxa uu gudoomiye maxamuud raage ka duraantay waayeelka waxgaradka iyo duqaytida beelaha muuse ismaaciil inay gacanta u soo geliyaan wariyaashaasi oo gasangeeraya wararka ku ologole deegaamada waqdariya iyo geelweyta. waliilkaad nagala socotaan waa taartiibiyo waxaa la arkaya dharaartii soonfureed ee shalay iyadoo ay isu bulladeen amase ay gundhowrka isu tumeen beelaha habar awal oo shantii lixisidayba ka caddaa meesha loo yaqaano buurta ka jeexan iyo weliba ilaa gantaalaha. aqolyahani waxoodu ma dhaabsiisnayn gooshii isaaq baa la xidhay ina cali daarood baa la eriyey ina kaahin baa xisbigii nagu haysta faadimo aadan baa shaqo loo dhiibi waayey muuse biixi ayaa laga soo celiyey gegida ay diyaaraduhu tagara rabtaan ee cigaal. waxaa la xidhay eeraani mashruucii banka wajaale ayaana la dhaafiyey iyada oo la qarameeyey kii banka qoolcaday. sidoo kale waxay duulka habar awal gaar ahaan sacad muuse ku doodayeen dhammaanba xilalkii ay hayn jireen loo dabaka dhiibay oo ciise muuse. waxay ku qalaadubaayeen inay dowladdu berbera dhistay oo muunaysay oo cirkaa geysay halka uu ina moogana daamahoodii dhisi waayey maadaama oo uu qurxiyey daamaha beelaha garxajis. waxay intaa ku dareen in la eegi waayey sultaankii subeer awal oo tolkii gumeeyey maadaama oo hansal laga hoos qaadi waayey. waxay sheegeen roodo cabdi muuse loo goodiyey oo aan waxbaba layskaga tirinin xilli laga hor istaagay bannaanbixii ka dhici lahaa garoonka xawaadle. waxay ku halaanhalaayeen mas-uuliyiintoodii la daba dhigay xisaabiyaal ibnan oo raadkooda ku jiibsadaa. waxay tilmaameen meelihii dhegsinka lahaa ee dhanxanaga lahaa ee xagashada lahaa ee murdiska lahaa ee miidda lahaa ee mudmudka lahaa ee xubno gobaadka lahaa ee xumaysta lahaa ee ololada lahaa looga jadeer wacay amase laga geesya ka furay. waxay sheegeen inaan kaalin looga tegin oo daas looga tegin oo laf looga tegin oo liqis looga tegin oo laafaalugad looga tegin oo ruugis looga tegin oo raqaaqub looga tegin oo calaalis looga tegin oo dharshi looga tegin. waxay sheegeen in gurigoodu baay oo garaacdoodu madoobaatay oo loo hadhay oo aqalkooda laga dhigay kii aadan yare. waxay sheegeen inay fadhiyaan gegi bannaan goox ama gabayoox aanay goroyo ilmaha dhigan. waxay sheegeen inay gawaan joogaan oo ay gacal waayeen oo tol waayeen oo xigaal waayeen oo xidid waayeen oo la isugu khayradirtay islamarkaana ay arki waayeen cid dhuunta u qoysa. waxay sheegeen in dhuuntu qallashay oo jiriinku engegay oo ay taqajalmeen oo macaluuleen oo targoofeen oo bayhoofeen oo dayoobeen oo dha'meen haddii laga tegi waayana aanay dad iyo duunyo waxba u dareerin. waxay sheegeen inay hogoodeen oo hanqadheen oo hagaaseen oo hadheen oo huduuceen oo hanka koobsadeen oo isqaadi kari waayeen oo laba qaar isu raaci weyday. waxay ku baroorikaasayeen inaanay habar jal arki karin oo buur mudow maqli karin oo maxamuud xaashi la tusi karin oo xirsi arrinkiisu yahay waraabe dhankii loo eryaaba waa u toos oo ay kaahin iyo kulmiye kaga dhigeen kabiyo xaarkeed waa la isku tuuraa. docda kale soddonkii goe u dambeeyey waxay beesha habarwel ku jirtay cad iyo caano iyo cindiid iyo dambar iyo lolasho iyo subag iyo burcad iyo sixin iyo badhaadhe gaar ahaana marka laga reebo inta uu ninka muuse cabdille soo tuusaday talada u saraysa ee somalilan. inay waantisaba dharaartii shalay ayaa madaxweyne cabdiraxmaan ciro fooda geliyey doornabale la isugu keenay wixii harga iyo saamaha ee duulka habarawal kuwaasoo markii loo dhiibay waxoogay faraguudkooda isla soo jacfeeriyey ama uu arrinkoodu ku soo gororay laba arrin oo kala ahaa madaxweyne cabdiraxmaan ciro dib ayaa loo dooranaya oo isagaa joogaya oo cid bedeli mayso oo meesha weydaaran maayo oo udbalago qaadi maayo oo loo soo dhowaan maayo. tan labaad ayaa iyana biyo dhaceedu ahaa in la sameeyo ooshii habarmagaado maadaama oo ay fanjeediyeen duulkii habar jecel oo muuse biixi lagu isugu taagay maray iska soo madoobeeyeen degmada ceelaf weyn gaar ahaana jilaalkan ka dambeedada jilaalkiisii. in la wadi jiray duulkan ayaa arrinkoodu ku dambeeyey doobi iyo heehi iyo midigeys iyo odayeys iyo gobshays iyo baajeeris iyo qulban iyo ibadar iyo iidhiib iyo maxaad haysa iyo maxaan ka daraynin amase aanay dhaafaynin oo ku olog leh xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan ciro. waxaa weli sii socda dhismaha dabaqa labaad ee sarta masjid jaamaca macalin xirsi ee magaalada caynaba qaybtiisa koowaad kaasi oo ay ka qayb qaadanayaan bulshada soomaaliyeed ee wanaagga jecel islamarkaana hor ilaahay ula baxaya wixii ay awoodaan ee ay ugu deeqayaan gurigan eebe oo aan cidna laga xigin amase aan laga sheegan karaynin. sida aad la wada socotaan waxaa dhammaaday foolkii koowaad ee masaajidkan waxaana iminka la rabaa in laga bilaabo qaybtii koowaad ee dabaqa labaad oo u baahan in looga qayb qaato hor ilaahay iyo habeen aakhiro.
iyadoo wax lasii dhiganayo maalinta dambayse ee la qatan yahay amase la qaawan yahay, taasi oo ah dharaarta eebe qur-aankiisa ku yidhi ama ku sheegay yowma laa yanfacu maalan walaa banuun ilaa man ata allaahu bilqalbi saliim. haddaba daawade lambarada aad wax kula baxayso oo kuwa shaashada kaaga muuqda.